waxa ay iskuuladu ku guuldareysteen inay lacagta kaa baraan. Lacagtu maxay kaaga dhigan tahay adiga? Wax noloshaada soo gala haddana ka baxa miya? Weli lacagtu ma kaa dhigtay qof nugul? Nuglaansho kugu qasbay inaad ku dhacdo dabinka degdeg lacag u samee, mise u gacan gashay macallimiinta beenta kuwaasoo kuu sheegaya haddii aad kooraskooda iibsato inaad taajir noqonayso? Waxay u muuqataa in fahamka aan ka haysano lacagta uu in badan ka muhiimsan yahay awoodda aan u leenahay inaan lacag samayno, gaar ahaan marka maskaxdeennu isugu xiranto qaabab ka hortegaya inaan noqono kuwo dhaqaale ahaan wax u fahamsan. Miyay wax micno ah leedahay haddii aad sanadkii samayso 6 figure ama wax ka badan, laakiin marka sanadka uu dhammaado aadan waxba ka haynin? Xaggee wax iska qabsan laayihiin? Waa waqtigii aan xalin lahayn isdiidadaas, aanna faham cusub ka qaadan lahayn lacagta, fahamkaasoo keliya lagu barto dhaqaalaha shakhsiga ah ee aan lagu baranin iskuulada iyo waxbarashada caadiga ah. Muuqaalkan waxaan uga hadli doonaa waxyaabo badan oo ay tahay inaad lacagta ka ogaato ka hor inta aadan ku fikirin inaad lacag samayso. Su'aal: waa maxay lacag? Maxay u taagan tahay lacagtu? Marka aad dukaanka xaafadda wax ka soo iibsanayso ama aad shaqaynayso si aad mushaar u hesho bisha dhammaadkeeda, maxay ka dhigan yihiin ama ay tahay ujeedada ka dambeysa falalkaas lacagaysan? Waxaa lagu qeexaa lacagtu inay tahay marinka wax isku bedelidda ama aalad wax la isku dhaafsado, taasoo fududeysa in wax la iibsado, wax la soo gato ama badeecooyin la kala beddesho. Laakiin waxay ila tahay in qeexidaasi aysan wax badan ka tilmaamaynin waxa dhabta ah ee ay lacagtu u taagan tahay. Waxaan dhihi lahaa lacagtu waa muujinta qiimaha. Marka aad xaddi lacageed la soo baxdo aadna shay ku iibsanayso, waxaad maanka ku haysaa in shaygaasi uu la eg yahay ama la qiimo yahay xaddiga lacageed ee aad soo baxsatay. Dabcan adigu ma aadan goynin qiimaha ee waxaa gooya suuqa, laakiin qodobkan ha ku dhaco: lacagtu waxay la eg tahay qiimaha shayga ee ma la eka sicirkiisa. Maxay taas in la fahmo muhiim u tahay? Waayo waxaan lacagta siinay muhiimad akhlaaqeed. Macquul inaad maqashay qof dhahaya lacagtu waa asaaska shaydaannimada. Waxaan arkaynaa qof u muuqda inuu lacag badan haysto, kadibna waxaan dhahaynaa lacagta xaggee ayuu ka keenay? Sidee ku helay qofkan? Yaa khasaariyey lacagtan si uu qofkaa u helo? Waa qof nasiiblow ah iyo waxyaabo la mid ah. Laakiin isma weydiino qofkaani qiimaha uu abuuray ama waxa qiimaha leh uu abuuray si uu lacagtan u helo ama uu soo saaro. Haddaba fahamka ah in ay lacagtu tahay qiimo waa wadada ugu fudud ee aad ku fahmi karta in aysan lacagtu ahayn wax shaydaannimo ah, qofna aysan ka dhigin shaydaan. Waa run, waxaa laga yaabaa in qaar scammers ah ay kugu qanciyaan in waxa ay kaa iibinayaan uu yahay wax qiimo leh, laakiin taasi lacagta wax badan oo xog ah kama sheegayso. Kaliya waxa ay qeexaysaa iyaga shakhsiyadooda. Lacagtu kaliya waxay ku siinaysaa fursado badan, waxayna ballaarinaysaa xuduudahaaga. dooqyada kala duwan ee aad ku samayso lacagta ayaana waxaa dhici karta inay saameyn ku yeeshaan habdhaqankaaga. Sidaa darteed ayay lacagtu u tahay qeexidda qiimaha. Sidee arrintaasi u bedeli kartaa xaqiiqada ah qofka ku nool, qaado mushaar, biilna bixi, ama qof si joogto ah u bixiya deynta uu ku leeyahay bangigu? Su'aalahaas dartood, qeexiddii ahayd in lacagtu tahay qiimaha waxba iska bedeli kara. Waxaba macquula inaan lacagta ku fiiriyo indho kale oo ah tee ayaa labadaas qeexitaan ah waana la dhaqan gelin karo. Si aad su'aashaas uga jawaabto, waxaan ku weydiin doonaa su'aal kale: waa maxay xiriirka kala dhexeeya lacagta? Lacagtu waxay soo gashaa noloshaada, kadibna way ka baxdaa. Haddii aan si kale u dhigno, waa dakhli ku soo gala iyo kharash kaa baxa. Qaab kale oo aan u dhigi karno, aanan jeclahay inaan ku cabiro, waa wax soo saarkaaga iyo isticmaalkaaga. Lacagtu inta ugu badan waxay kugu soo gashaa wax qiimo leh oo aad soo saartay ama aad qabatay. Inteena ugu badanna qiimahaasi waxaan ku keennaa qaab shaqaalanimo ah ama waan shaqeynaa, kadibna lacagta waan isticmaalnaa oo way naga baxdaa. Wayna yar tahay inta lacagtaasi ka mid ah oo aan ku bixino maalgashi ama wax gadaal dambe faa'iido inooga keeni doona. Sharaxaadaas kala duwan ee aan bixinaynay waxaan uga gol lahayn inaan isla qirno in wax soo saarkaaga aanu wax micno ah samaynayn haddii uu dhib kaa haysto kharash garaynta. Tartanka jiirku waa fikrad ah halgan nololeed oo aan dhammaad lahayn ama si ujeeddo la'aan iskaga socda. Mararka qaarna tartanka jiirku waa inaan ku qanacsanaano shaqaynta 5 ilaa 9 saacadood maalin walba. Taasina waa isbarbardhig marar kale ay dadka qaarkood u isticmaalaan inay kugu dambaajiyaan iibsashada buugtooda iyo programyadooda. Laakiin taasi waxay u muuqataa gebi ahaanba mid cadaalad darro ah, waayo waxay xumeynaysaa shaqada, waxayna meesha ka saaraysaa in ay jiraan dad ku fiican ama ku qanacsan shaqadooda, kuwaasoo sidoo kale leh waxyaabo kale oo ay xiiseeyaan oo ka baxsan shaqadooda 5 ilaa 9 saacadood ah. Tartanka jiirka ee saxda ah waa qofka ku nool khatar dhaqaale, taasoo ah in uu mushaar qaato isla markiina uu biil ku bixiyo. Qofkaas oo hal mushaar oo seega dartiis wax la'aan ku soo dhacayo.
qofkaasi wuxuu qabaa dareen ah in isla marka ay lacagtu soo gashaba ay kasii baxayso, waxaana run ah in ay u sii siyaadayso khatartaasi mar walba oo ay kusoo badato mas-uuliyad cusub, sida in shaqada laga eriyo ama xaalad caafimaad oo degdega ku timaado ama waxyaabo kale oo emergency ah, taasoo ka dhigi karta noloshiisa inuu eber kasoo bilaabo mar kale. Intaasoo dhanna waxaa usii dheer khatarta maskaxeed uu qofkaasi ka qaadi karo xasilooni darradaas dhaqaale. qofkaasi inuu shaqeeyo doorasho uma lahan ee uuba ku qasban yahay si ay noloshiisa u socoto. Haddaba maaha in arrimuhu sidaa iskaga socdaan. Tallaabada koowaad ee aad u qaadi karto dhanka dhaqaalaha shakhsiga ah waa inaad barato xiriirka kala dhexeeya lacagta. Tan waxaad ku ogaan kartaa inaad qorto ama joornaal gareyso xog xisaabeedkaaga kharash ee bilaha ah, adigoo u kala saaraya xaafadda, biilasha, guryaha, gaadiidka iyo dhammaan alaabada kale iyo xataa madadaalada. Waa inaad fahamtaa inaad adigu nafsad ahaantaada tahay isticmaale ama consumer. Laakiin tallaabadani ma fududa, waana in aad ka baqayso inaad aragto xog dhaqaale oo aanad ku faraxsanayn haddii aad qorshayso kadibna ay wax kuu soo baxaan. Laakiin haddaad marxaladaas ka gudubto, waa xilligaad qaadi lahayd tallaabada labaad, taasoo ah inaad ka gudubto habdhaqanka ku dhisan isticmaalka. taasna waxaa ka dhalanaysa fikradda budget garaynta oo ah inaad go'aansato bil walba kharashaadka kaaga bixi doona meelihii aan soo sheegnay. Waa hab aad ugu dhabagelaysid sida aad wax u kharash garayso, aadna ku raadinayso wadooyin aad ku dhimi karto kharashaadkaas micno darrada ah, noloshaadana ka dhigaysa mid ka sokaysa awooddaada dhaqaale. Si kale haddaan u dhigno, waa ku noolaanshaha nolol kuu siinaysa fursad inaad haysato lacag ka dheeri ah kharashaadkaaga, mar walbana aad ku samaysan karto maalgashi una isticmaali karto wixii degdeg ah. Tallaabada saddexaad waxay noqonaysaa waa in uu jiraa waxaad ugu talagashay xaaladaha degdega ah. Ka hor inta aanad waxba maalgashan, caymiskaaga dhaqaale waxa uu noqon karaa qadar hanti ah oo u dhigma kharashkaaga 3 ilaa 6 bilood. Si walba oo loo eego, qaacidada ah u noolow si ka sokaysa awooddaada dhaqaale waa mid aad u fiican, horena loo tijaabiyey. Ka dhuumashada inaad ogaato sida ay kharashaadkaaga ku baxaan waa mid ka mid ah waxyaabaha saamaynta tooska ah ku leh dhaqaalaheena. Waxaa la mid ah faa'iidada yar ee dhow oo aan ka doorbidno faa'iido badan oo mustaqbalka imaan karta, hyperbolic discounting, oo ah sida markaad kala dooranaysid inaad soo iibsato beer cusub oo kaba ah ama inaad $20 ee aad ku iibsanayso aad u kaydsato maalgashi aad samayn rabto mustaqbalka. Waxaa sidoo kale saameyn ku leh dhaqaalaheena iska dhisidda bulshada ama waxa loo yaqaano social proof, taasoo ah fikrad ku dhisan inaad u fikirto ama u dhaqanto sida ay u fikiraan ama ay u dhaqmaan bulshada kugu xeeran, oo ah marka ay wax soo iibsadaanba inaad kasoo daba iibsato, ama hadday aaminaan in lacagta haysashadeedu aysan ahayn wax wanaagsan, adiguna aad sidaasoo kale aaminto. Waa fikrad ah in wax kasta oo dadka kugu xeeran sameeyaan aad samayso. Haddii ay guri cusub degaan, haddii ay dhar cusub soo gataan, haddii ay gaari cusub soo gataan, wax walba waad ka daba samaynaysaa si aad isaga dhisto xaggooda. Arrinta cajiibka waxay tahay hadda dadka kugu xeeran oo keliya arrintaas uma samayno. Adduunka oo dhan ayaa noqday hal tuulo, taasoo ka dhalatay isticmaalka baraha bulshada ee sida xawliga ah ku socda. Waxayna nagu qasabtay inaan iska dhisno dad aanan xataa isku qaarad ku nooleen. Taasina waxay ka dhalatay marka aan qiimaheena ku cabirnay inta qof ee ka hesha ama laygaraysa waxyaabaha aan baraha bulshada soo gelin, sida sawiradeena, muuqaaladeena iyo waxyaabaha la midka. Runta markaan sheego, ma aaminsani iibsashada dhar iyo waxyaabo la isku qurxiyo oo qaali ah in ay tahay wax xun. Ujeedka muuqaalkana ma ahan falsafadaynta aragtida maadiga ah ee adduunkan, ee waa sawiridda wacyi sheegaya adigu cidda aad tahay isticmaale ahaan. Ma waxaad jeceshahay inaad u muuqato qof lacag haysta, mase qof dhab ahaan lacag haysta? Fikradda tartanka jiirku ma ahan ka shaqaynta shaqo 5 ilaa 9 saacadood aad ka shaqaynayso, ee waa ku noolaanshaha nolol aad qarka u saaran tahay in aad dhacdo haddii mushaarba midka ku xiga aadan ku sugin, taasoo keenaysa inaad yoolashaadii mustaqbalka oo dhan gadaal u dhigto si aad u sii wado tartankaas jiirka. Qorshaynta iyo xisaabinta kharashaadka kaa baxa waa arrin la tijaabiyey, taasoo kaa saari karta inaad ku sii jirto tartankaas jiirka ee aadka u xun. Waa iska madadaalo in laga sheekeeyo lacag samaynta ama suuraysashada hanti badan, laakiin maxaa micno ah oo ku jira isticmaale ahaan haddii xiriirka lacagta kaala dhexeeya uu yahay inaad gebigeedaba gubto ama inaad noloshaada oo dhan shaqayso si aan kala joogsi lahayn si aad u noolaato? Waa sidaas tartanka jiirka ee runta ah. Waa wax iska sahlan oo la samayn karo inaad dhinto kharashaadkaaga iyo waxa kaa baxa marka la barbar dhigo inaad kordhiso dakhligaaga. Micnaheeda waxaa adag kordhinta dakhliga. Sida dhabta ah, waxa kaliya oo kordhin kara dakhliga ku soo gala waa inaad keento value ama qiimo cusub oo aad suuqa kusoo biirisay. Si kale haddii aan u dhigno, dakhliga ku soo geli kara wuxuu ku jaangoonaanayaa baahida ama mashaakilka aad xalkooda hayso, inta ay dhan yihiin tiro ahaan ama heerka ay gaarsiisan yihiin tayo ahaan. Haddii aan sii faahfaahino, adeeg, shaqo ama wax soo saar kii aad dakhli ka hesho waa inaad horumarin ku samaysaa. Haddii aad wax soo saarto, waa inaad horumarisaa wax soo saarkaaga si aad u kordhiso dakhligaaga. Haddii aad bixiso adeeg, waa inaad tayaysaa adeegaaga si aad u soo saarto dakhli ka badan
kii hore. Waa inaad xirfadaada suuqeeda aad daraasaysid, kadibna aad ogaatid baahiyaha ka jira suuqa ee ku saabsan xirfadan. Baahiyahaasna aad u keentid xal. Xalka aad la imaanaysana waa inuu noqdaa xalkii suuqa hore u yaalay mid ka wanaagsan. Waana sida keliya ayaad kaga hormari karto cid walba oo xalkaas horey u haysay. Waxaase kasii fiican inaad xaliso dhibaato aan xalkeeda horey loo hayn. Ugu horreyn waa inaad isu aragtaa inaad tahay isticmaale ama consumer si aad u ogaato waxa aad iibsanayso iyo sababta aad u iibsanayso. Taasna waxay keenaysaa inaad qorsheyso kharashkaaga si aad ula socoto isticmaalkaaga, iyo inaad horumariso wax soo saarkaaga, shaqo, ganacsi ama wixii kale aad suuqa ku joogto si aad u kordhiso dakhligaaga. Haddii aad halkan ila soo gaartay, waxay caddaynaysaa inaan wax faa'iido leh kugu soo kordhiyay. Waxaan rabaa inaan kaaga mahadceliyo daawashadaada. Haddii aad jeceshahay inaad aragto barnaamijyo badan oo xiiso leh oo la xiriira dhaqaalaha, ganacsiga iyo tiknoolajiyadda, aan isku weheshano baraha bulshada, kuna soo biir muuqaalkan share iyo like-na u samee si uu u gaaro dad badan.